odayaashii guurta ka soo shaqaysay mediationka iyo akademiyada way aad u mahadsan yihiin waxaa isna mahadle anigu xoog baan u saarnay arrintan inay doorasho dhacdo haddaan cudnahay anu shaqsiyaana wiigii u dambeeyay ilaa 9 qof baan u diray in la joojiyo arrintan 15 bisha khudbadii madaxweynaha taasoo arkay wax aan suurtagal aan ahayn laana waa mamnuuc sharcigu ma sheegayo in la isku adeegsado awoodda madaxtooyada in la isku muquunsho in dimuqraadiyadda absolute power ma jiro dimuqraadiyadda waxa weeye check and balance baa jira sharcigaa lagu kala socdaa marka waxaan arkaynaa anagu in arrintaasi tahay arrin laga tegey issue la isku hayay oo noqotay shakhsi weerar iyo shakhsi iska celi inay noqotay heshiiskani waa guul maanta Soomaaliya u timi Soomaaliya guusheeda waxa weeye inay doorasho dhacda adduunkana inaga sugiyay inaga danteena waxaa fadhiya halkan golayaal aan sharci ahayn muddo dhaafay dalka wax alle waxay ugu sugayaan jirin anagu madaxweyne horena waan kula shaqaynaynay waxaan jecelahay in marku dhamaado khilaafka la joojiyo talada waxa ku fiican tahay in la wada yeesho aday qofka talada adaa ku banaad uma baahnid waxaan jecelahay haddaanay jirin harmonization asxaabta iyo executive ka dhaxeeya oo aan isku cadowsameen inuu khilaaf soo noqon doono issues waa la isku qabtaa waa lagu murmaa laakiin ma jirto hatred iyo findafdaf iyo cadaawad waa laga saara saasaan ku shaqayn jirnay saasaan intaasoo madaxweyne kula soo shaqaynay waxaan jecelahay in Soomaaliland waxay ku caanamaashay ahayd ismaqalka wada shaqaynta dadaalka ka dayna khilaafka at least ka dayna haddaan deliver gareynin baahidoodii inaynu dushooda isku haysa ka dayna anagu waxaan kula diyaarnay madaxweyne inaanu kula hirgelino wax alle waxaad nooga baahan tahay labada xusbina aan kula diyaarnahay international waxaan jecelahay inay iyaguna roolkooda ciyaaraan wixii ku soo qayb gala xagga dhaqaalaha keenaan runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa munaasabaddan maanta aynugu nimi curinta heshiiskan maanta ayn hor yaalla kaasoo suurto geliyey inaynu isfaham intii hore ka dhow isugu nimaadno iyadoo xalku yahay in doorashooyinkii golaha wakiilada iyo deegaanku inoo qabsoomaan sanadkan aynu ku jirno gudihiisa runtii dadaal badan baa jiray oo dad badan ay sameeyeen ama axsaabta ahaadaan ama bulshada waddaha ka tirsanaadaan oo doonayay in caqabadan doorasho la-aanta laga gudbo iyo muranka siyaasiga ah ee inagu raagiyay axsaabta iyo xukuumaddaba waxaan si gaara u xusayaa runtii madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saydici aan is leeyahay iyadoo in badan in la wadaagtay aada buu ugu dadaalay in arrimahaasi isfaham iyo guul ku dhammaadaan de guddigii dhexdhexaadinta laftooda way dadaaleyno heshiiskoodii waxbaynu hadda ka qaadanay halkan iyaguna runtii waa mahadsan yihiin waxaan kaloo jecelahay maalmahan ugu dambeeyey inaan xusaabtigay cali ibraahim hoosna aada u dadaalay maalmihii ugu dambeeyey
waxaan runtii dee shalay waxaynu haynay wax kale maantana oo ah in doorashadii aynaan rajo badan ka qabin laakiin ama urur la furo ama hawl kale la galo laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waxaynu kusoo noqonnay inaynu u wada guntano sidii aynu uga midhodhaanan lahayn doorashadii inay qabsoonto axsaabta way ka go-an tahay sida adiga kaga gaantay madaxweyne in doorashadii la qabto waxaana rajaynaynaa in heshiiskani uu noqdo midaynu ku guulaysano sulxu xudaybiya noqdo insha allahu kii aynu kaga baxaynay murankii iyo in doorashooyinkii noo qabsoomaan noqdo ka duwanaado kulamadeenii hore iyo heshiisyadeenii horeba insha allahu heshiiskan waxyaabo ku cusub dee somaliland baa ku jira guddi qura inoo qaban jiray doorashada laakiin maanta waxaynu ku heshiinay si doorashadii noogu qabsanto oo xeegana xeega u noqoto ilkana u nabad galaan in commissionka jiraana jiro guddi kalena oo isugu jira commissionkii hore ee qaranka iyo ajanabiba ay noo qabtaan doorashadii madaxweynekooda ku dhamaanayo insaan heshiis ku qoransan filayo markay doorashadu natiijadeedu soo baxdo waan soo dhaweynaynaa heshiiskaas waxaanan ku rajo weynahay inuu noqdo heshiis aad looga banaan degay oo insha allah waxba nagaga soo noqon oo shuruucda loo eegay oo caqabado sharciyo dambe inaga hor imanayaan aanay jirin waxay noo waajibahun sida heshiiska ku qoran maanta u dhaqan gelaya marka la saxeexo marka diyaar baan u nahay wax kastoo nagaga soo aada hawshaa fulinteeda iyo dhaqangelinteedaba waxaan rajaynayaa waktigaa aynu qabsanay 2020ga inay doorashadii noogu qabsanto aada iyo aad baad umahadsantihiin waxaanu doorbidaynaa inay doorashada baarlamaanka iyo dowladaha hoose ay isku skanay qabsoomaan haddii aad qoonsanteen waxaanu qabanayna taas baan u soconnaa haddii idinaad tidhahdeen doorashadaasaanu annaguna u soconnaa sida isoo gaadhay annana taas baanu doonayna maantana waxaanu jecel lahay in badan baynu ku wareegeysanay inaynu doorashada awoodda saaro marka kooxdaas waa tii kulmiye saasaanu heshiis ku nahay halka waxay anaga ii dheer xeerarka dalka u yaalla kulmiye ma wada saarey aniga isaaray inaan aliyo anoo dhex waa xisbiyada oo dhan anna waxaan kan doonayaa inaan ka caddeeyo marka ay tahay awoodda dowladda iyo ilaalinta xeerarka inaan dhex kahay xisbiyada si aynu shaqada wada qabanno markaynu boolatiigayno xisbi loo eegayo koonfuriyadda xisbiga waa halkeeda laakiin inaanan taa ku gudbinin xeerarka qaranka inaanan ku jirin xisbiyada kale waan yaqiinsanahay ilaahay hortiina waan ku dadaalaya inaan taa dhex ka ahaado saaxiibadana waxaan doonayaa inay ila dareemaan taa oo haddii aynu sharciga ku marano aanan u xagleynayn dan xisbiga kulmiya aan lahayn malaha qaranka yaana dhalaan beritaa la noolaan saada maasha la wadaya war xeerka aan ilaalinayaan wixii aad igu qoonsataa intaa waxa weye mawduuca inoo yaallaa waxaanu maanta doonaynaa inaynu si detail u dhammayno inu ka heshiino ra'yigaa fariin ahaan igu soo gaaray inaan qaadate oo inaa inagu ka wada hadal oo ahaa ra'yigii ka soo onkamay qolada odayaashii hore waxay idhaahdeen iyo la isku daray iyo kuwii dambe qoladii akaadimiyada ee aqoonyaanka ra'yigaa ay soo beeska u lahaayeena ah guddidii hore oon looga maarmayn waaye arag farsamo iyo labada xisbiya mucaaridkoo maanta iyaga aaminsan iyo guddida sharciga ku dhisan oo aan waaye arag badan lahayn idinkuna aa ka biyadiidintihiin inay dhibaatada taataan filaya
sharciyan markaanu eegno waxaynu u baahan nahay saa sharcigu u jiro inoo horgasho in labadii la iswaafjiyo la socodsiiyo oo kuwii aad rabteena la keeno waayo aragnimadii aaminada ku qabteen kuwii sharcigana aan la burburin karin yaa tan labadaa aan iswaafajino oo aan doorashada qabsano ra'yigaanu u fadhino halkan waa kaa kii baynu gudagelaynaa waa isu dulqaadanaynaa waa isriixriixanaynaa wixii danta qaranku ku fadhi doorashaan kulayna waa gaaraynaa